xirfadaha dunida ugu qaalisan ee malaayiinka doolar laga sameeyo ayay ka mid tahay kubadda cagtu, balse dhulkeena waxay ka tahay timir xabaal taallo oo kale. wiil dhalinyaro ah oo Soomaali ah kuna ciyaaray garoon aan horumarsanayn ayaa mar kaliya qabsaday shaashadaha caalamka. isbuucan aynu ku jirno ayay ahayd kolkii la daawaday ciyaar dhex martay dhalinyaro Soomaaliyeed oo ku sugnayd magaalada Wajeer. waxay ishu qabatay Cabdiraxmaan oo dhalinaya kubad cajiib ah oo aan hore loo arkin xirfadeeda iyo qaab dhalinteeda. muuqaalkan waxaa daawaday in ka badan 10 milyan oo ruux, iyagoo dhammaantood baqaray in wiilkani sameeyay arrin mucjiso ah. Cabdiraxmaan oo la waraystay ayaa sheegay inaanu ka warqabin goortii muuqaalkan laga duubayay, balse uu ku baraarugay goor dambe loona sheegay in lala dhacsan yahay goolkii uu dhaliyay, muuqaalkiina uu gaadhay daafaha dunida. wiilkani waxa uu sheegay in daadiisu ay tahay 20 sano, uuna u baahan yahay in la siiyo tababar caalami ah si uu uga mid noqdo ciyaartooyda mustaqbalka dunida. dadka faalada ka dhiibta ayaa isku raacay Cabdiraxmaan inaanu nasiib lahayn, sababtuna waa inaanu joogin goob laga qadariyo kubadda cagta. inta badan Soomaalidu kuma wanaagsana banooniga, umana arkaan rajo buuxda oo kafeen karta mustaqbalkooda. xafaayadda maama kuma dhibaatoodo ilmuhu, hooyaduna kama warwarto. xafaayadda maama waxay waalidka u fudaydinaysaa inuu si sahal u ogaado kolka uu cunugu isticmaalo. ogow uma baahnid inaad fiiriso, keliya calaamadda jaallaha ah ayaa isku beddelaysa buluug. waa xafaayad ku habboon ilmahaaga kolka uu ciyaarayo, guurguuranayo ama uu hurdo. nashqadda xafaayadda maama waa mid ilaalinaysa maqaarka ilmaha ee jilicsan. waxay u kala baxdaa 2 nooc oo kala ah, mid sharoota ah iyo mid buuma ah. si aad u soo dalbato xafaayadda maama, soo wac nambarada shaashada kaaga muuqda. waalidow, balanteenu waa xafaayadda maama.